شكري ويو وصل معنا والله تحبطو وجهيدا شكري ويو والله تحبطو وصل معنا maantana waa maalin kale oo saxaafadu Tukri noogu timiday wadadii Tukri ayay noogu timiday maanta waa maalin barwaaqo ah waxaan bilownay abaar baan bilownay wadada waa barwaaqo tiiftii abaartu ka tagtay ha jirto xoolo la'aan ha jirtay waa idinka arkaya dhulka greenkii iyo wanaaga dadku maanta wuu badan yahay abaartii waa la kala lunsanaa maanta ilaa 120 qof ayaa halka ku shaqeynayay imigay soo rawaxeen way bariiseeyeen waxa weeyaan wadadii meel fiican bay maraysaa waan foororsanay oo kadartii waan foororsanay laakiin dhul badan oo adag baa noo haray waxa weeyaan moral fiican baa saaka lagu shaqeynayaa wadadu meel fiican bay maraysaa waxa weeyaan war wadadaasi in la nala soo dhameystiro markii horena idinka noo bilaabay waxa weeyaan inay dhamaanasana waan inigu ballan qaadanaa oo ay dhamaanaysaa si fiican insha Allah walaalayaal waxaan u baahnay wadayadii waxaan ag joogaa maxamuud reerkiisu meel naga dheereen buu imiga yaalaa baabuur loo raaca hadii la yiraahdo caawa maqribkuun baa la tagi waxaan u baahanahay wadada sidii awal baad nooga soo caawin jirteen inaad nooga soo caawisaan waliba dadkii deegaankan waxa la yiri toosni loo galgasho tolla weerkiyaaba la tolkeena walba weyn caawinayay war dadkeenii deegaankoow ama wiilaato ama gabadh ha ahaato wadada waan inagu dhaleelayaa tolka kale ay nooga roon wadada wax ka soo tara wadada nala soo dhameeya shirweyneeni waa bisha Oktoobar 3keeda inta ka horeysayna wadadaasi noo furantaan doonana tolkayana waxaan leenahay awal bay idinka nala waday idinka nooga fiicnaa wadada dadkii deegaanka u dhashay wadada tolka kale kaga fiicnaa waxa weeyaan sidaada walba noola wada waxa weeyaan wadada cid waliba way maraysaa cid gaarihi male ilaahay u baa noo diro anagu waanu dhaqaaqnay laakiin cid gaarihi male waxa weeyaan Baki iyo Gebile iyo Hargeysa intaba waa u waji dadka ugu badan baa ka dhaadhaca Tukrigii dabadeedna lagama qaadin dhagax lagama qaadin wata maanta ilaahay baa inoo diray waan shaqeynana meel fiican bay maraysaa waxa weeyaan odayada hadli doona tolkayo wadada sidaada walba wax noogu soo tarasay noogu soo tara dadkii deegaankoona canaan baan inii soo jeedinayaa waxa weeye adduunyada kulbalayn baa lagu joogaa kulbalayn meeshan la yiraahdo Tukri kolka la leeyahay Tukri waqtiga wadankeena haysan jirtay ninkii taariikh ayaa hore ma garanay kadib dabadeed waxa wax laga qabtay wada gaari maro iyo toowr maro midna arlada kama furna dooxa midhireed dawga mara halka garbada dadka taga iyo wadada cad bari in badan naga xigta inta u dhaxayso dhan wuu xidhan yahay ka dhintay meel la mariyo lama helo u dhakhtar la geenay meel lagu qaado lama helo wax dhakhtarho meesha u yaalaan ma jiro wixii taas gaarsiinta go'an oo dhulkaasi haba yaraatay wax moobilna ka dhicin dhulka haddaba caynka ahaa ee tasada iska qabyoobay cidda maanta ilaahay u soo diray ee duqeyda maanta halkaas suldaanku madaxiya ka hadlaysa ee Allah u soo diray ayaa mahad weyn leh ilaahay baana mahad inta soo gargaartay iyo inta nimika codanayna inay soo gargaartaan mahad bayleeyeen waxaan saleenahay waad gaabiseen walaalahay waad gaabiseen ragii halkan u dhashay oo waad gaabiseen wargaabinta ka baxa oo horow soo talaabsada amba hay adakeena amba idinku xoogiina keena indiga guriga leh oo dhashay dhulku lama kala leh wado kolka la yiraahdo ka ergaaba ka yimid iyo ka hadii la yiraahdo Djibouti ka yimid intaba way u banaanto u mara laakiin intii kolka ka taab gashay ee deegaan waliba ku si ah ayuu xil weyn ka saaran yahay oo cishaba dhagixi ku soo dhacay inay ka qaado waliba laga raba joogta waxay ahaanaysaa ilaa intii alla ka dhigo meeshu way hawl badan tahay hawl weyn weeyaan intii noogu adkayd ayaa haddan markii hore beelaheen waxay bilaabeen 75kii 1975kii baa la bilaabay qabyad dacalkana waa laga soo bilaabay korkana waa laga bilaabay intii ugu xoog badnayd ayaa hadhanayd markaaba
intii kalena amba abaara ha gooyaan amba roobab ha gooyaan amba waqti waa ha raago sidaa dhul aan weligeed la taaban ba u egaatay wixii oo dhan waa badankeega waa la soo shaqeeyey inta ugu adag ee buurta aan ku jirno iminkaan madaxa ka galleen ku jirno ayaa ugu quwad badan intaana insha allahu waynu dhammaynaynaa dee maskax iyo maal iyo muruqba ha laysku daro saasaan idinka codsanaynaa walaalahayagaan meel walba noo joogo dibad iyo dalka midkeed joogtaanba sidaasaan idin farriintaasaan idin soo dirannay waanad mahadsantihiin oo cali ilaahu boloy baydh maanta amiin berina ilaahu boloy baydh dabadeedna ilaahu boloy baydh kulyoonba ilaahu baydh waxa la yidhaa walaalaha odayada hadalkooda wayniga maqlay inina way biirin doontaa inina dee way iska dayn doontaa oo hadalka maanta oo dhan lagu jiri maayo sayar muuqdaa dee su'aal ma doonaa la yidhi ciidanka waad arkaysin duqaydana waad arkaysin culimadana waad arkaysin meesha aan joogno dadka maanta aad ku arkaysin dadkii xoolaha dhidki jiray buu dee xoolaha wakhti baa qaaday hamin kolkii xoolaha aan hayna annaan hayn baa timiday kolkaan xoolihii aroori uga bax rabbina wuu jiraa ragna wuu inoo maqan yahay baan lahayn dee rafasho badan baa la soo galay oo hamidii lagu galay wixii naga itaan roonaaday baa amba na helay amba dambeey waxaad u egtiin islaantii kimis bay dubto xabad bay ka tagtay lala sidaa baan inagu tirinaynaa haddana cid kale tolkayow laynigama haysto wixii kale waa biiru uun hadduu islaam soo galo iyo hadday hay-adi soo galo xalaal ninkiile baa dhaqdadeed taasi waa sidaa sida kale dawga maanta aan joogno tugri baa layniigu sheegayaa tugri caanoolaa la odhan jiray iminkana caanihii caano ka badan baa ka muuqdo dee rag buu u baahan yahay maluu u baahan yahay muruqna wuu u baahan yahay dawga noogu dhow midhidh baa la yidhaahaayoo galbeed buu naga xiga galadhigu madaxuu kaga tagaa ilaa darkiisuu socdaa roobabka isku helaa daruuri kolkay daado gaadiidka wax badan buu qaadaa ummadda fuushanna wax badan baa ku dhintay dhan looga baydhana male dawga maanta aan joognay hamidu noo geysa nagana itaaroon daad meel looga baqa meesha dhow waxaa la yidhaa halkani waa dhuun halkani waa af iyo gacan baa la yidhaa xeeb ninkii u socdo wuu dhow yahay itoobiya ooga ninkii u socdana wuu u dhow yahay hareeraha ninkii u gudbayo dhul istaraaji oo nin waliba meeshuu doonayo uga baydho yuu leeyahay dee dawga maanta sidaabaa hoodaha dawga maanta aan joognay hamidu nagu kacday ragna waa u maqan yahay aan leenahay cabashadeeda haddii ilaahay idhaaho laynii sheegayaa ay tahay kolkaa waxaa weeye dee abaaraha dhul lagaga baxay baa jira laakiin ilmuhu hadduu bugtaan noqdo hore uma koro halkaa iminkaan joogno wixii ka hooseeya abaarihii way haystaan laakiin sida roobkuu eg yahay iminkaan la rajaynayaa inuu hele irmaankiisu yahay halkaan joogno wixii dusha ka heganaan inay leeyihiinba daruuraha lagu helayoo qarqar noolaasho aad looma noolaana qarqar noolaashaa dee lagu dee dadka 3 abaarood baa soo maray halkan jooga maanta iyo intii kale alla ku daro 3 abaarood oo isku xigtaa soo maray oo xoog abaarta u horeeyay hayl-hayla la yidhi ta ku xigtana haddii ilaahay la hurgufaa la yidhaa abaarta u dambaysa saddexaadna kama kacaan la yidhaa deedoo beerka dhulka wax u saar itaan xumadeedii baa la leeyahay dee ilaahayna maanta wax fiican baa laga rajaynayaa amba la arkaya haddaba waxa weeye walaalahayow dee hadal badan bul ma buuxshaa la yidhaa sidaan u haminay iyo sidaan u muuqanno iyo sidaan u rafanayno iyo sida dawgaasi gaax yahay ee Soomaaliya danteeda u yahay ee Somaliland danteeda u yahay ee ka degan dantiisa u yahay haloo arkadeed halana soo caawiyo waxa la nagu soo taro aan laga wahsan السلام عليكم وذوي الحقوق علينا ولمن أجر هذا الخير في هذه الساعة وللجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات قاضي الحاجات غافر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين ارحمنا 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 والمسلمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.